sacuudiga, imaaraadka carabta, masar, baxrayn iyo dalal kaloo dib kaga soo biiray oo ay jabuuti ka mid tahay ayaa xiriirka u jaray dowladda qatar isla markaana hawadooda ka xirtay duulimaadyadii ganacsi ee dooxa iyagoo ku eedeeyey inay argagixisada barbaariso. hase yeeshee qatar si adag ayay ku beenisay eedayntaasi loo jeediyey. inkastoo wadahadallo ay dowladda kuweyt garwadeen ka tahay oo lagu doonayo in khilaafkaasi lagu soo afjaro ay socdaan, amiirka dowladdaasina uu socod ku tegay caasimadaha riyaad, abudabi iyo dooxa, haddana diblomaasi sare oo maraykana ayaa sheegay inaanay haatan jirin wax qatar lagala xaajoodo, iyadoo ay meesha ku jirto eedaynta dowladdaasi shidaalka hodanka ku loo jeediyey ee ku qotonta in ay maalgeliso argagixisada, isagoo intaasi raaciyey in dalalka carabta ee doonaya in ay takooraan aanay go'aankooda dib uga laabanaynin. wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka carabta maxamed qarqaash ayaa sheegay in si wadahadal loo galo ay qatar waajib ku tahay inay dalkeeda ka eriso xubnaha ururka xamaas, isla markaana ay joojiso taageerada ay siiso kooxaha argagixisada ah ee alqaacida ay ka mid tahay sida uu hadalka u yidhi, sidaasi si la mid ahna ay meesha ka saarto warbaahinta ay maalgeliso oo ay ku jirto shabakadda aljaziira. turkiga ayaa arbacadii sheegay inuu barbar taagan yahay dowladda qatar. sarkaal sare oo xukuumadda ankara ka mid ahna waxa uu xusay in dalkiisu uu ku howlan yahay qorshe la xidhiira ciidamo uu geynayo saldhigga uu dalkaasi ku leeyahay qatar, sidoo kalena uu raashin iyo saad kale u daabulayo waddankaasi yar ee hadda u muuqda mid ay takooreen qaar ka mid a awoodaha gobolka bariga dhexe. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in go'doominta qatar aanay dhibaatada xal u noqonaynin, waxaanu erdogan oo ilaa muddaba isku dayayay in uu kaalin dhexdhexaadina ka qaato mashaqadan intaasi ku daray in dalkiisu uu dhabarka isaga jebinayo sidii uu gacan uga geysan lahaa soo afjarista qalalaasaha gobolka ka jira. dowladda imaaraadka carabta oo iyadu la rumaysan yahay inay sal u ahayd khilaafkan ayaa cadaadis weyn saaraysa muwaadiniinteeda, waxaanay ku goodisay in qof walba oo laga dareemo inuu ka xanuunsanayo xayiraadda dooxa xabsiga la dhigi doono muddo 15 sana, waxaanay soo saartay go'aan ay muwaadiniinta qatar kaga mamnuucayso in ay dalkeeda soo galaan. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii soo saaray war uu ku garab istaagayo sacuudiga iyo xulafadiisa, isagoo ammaanay go'aanka ay qatar ka qaateen. hase yeeshee donald trump oo u muuqday inuu ka laabtay hadalkii uu garab istaagga ugu muujiyey sacuudiga ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray amiirka dowladda qatar xamed bin khaliifa al thani, wuxuuna u sheegay inuu jecel yahay in qalalaasahan diblomaasiyadeed lagu xalliyo wadahadal, isagoo soo bandhigay hindise ah inuu gogasha wadahadalkaasi fidinayo aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo. wasiirka gaashaandhigga maraykanka james mattis oo isaguna la hadlay dhiggiisa dalka qatar waxa uu sheegay in maraykanku ay ka go'an tahay dhowrista ammaanka gobolka. qatar waxaa ku sugan ilaa 8,000 oo askari oo Ameerikaana, waxaana ku yaala saldhigga ugu weyni ay ciidamada cirka maraykanku ku leeyihiin bariga dhexe, kaasoo ay ka ambaqaadaan diyaaradaha duqeeya fariisimaha ISIS. inta badan marinada beriga, badda iyo cirka ee qatar ayaa la xiray iyadoo ay tallaabadaasi daba socoto qalalaasaha diblomaasiyadeed ee gobolka ka oogmay, waxaana sidoo kale hoos u dhacay sarrifka lacagta iyo saamiga suuqa qatar, waxaanay dowladdaasi dhabaheeda dhinaca cirka ah u weecisay dalal ay iiraan iyo soomaaliya ku jiraan kadib markii imaaraadka, sacuudiga iyo baxrayn ay hawadooda ka xirteen. muwaadiniinta qatar ayaa ku xoomay suuqyada iyagoo ka cabsi qaba in quutul daruurigu uu ka go'o. mas-uul qadari ahna waxa uu sheegay in xayiraadaasi kadiska ah ay ku qaaday in ay turkiga iyo iiraan kala xaajoodaan sidii ay u dabooli lahaayeen baahidooda dhinaca raashinka, isagoo xusay in kaydka ay hadda haystaan uu ku filan yahay oo keliya muddo 2 toddobaada. dowladda soomaaliya ayaa meel dhexe iska taagtay khilaafkan ka dhex haloosan waddamada carabta. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay ka xun tahay arrintan, waxaanay ku baaqday in xasaradan waddo wada hadala lagu xalliyo, waxaanay ku dhawaaqday in iyadu waa Soomaaliya ee ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato xal u raadinta xiisadan.